waxaa jiri jirtay naag la yidhaahdo dhegdheer. dhegdheer waxay ahayd naag dadka cunto. maalin maalmaha ka mid ah waxay guriga ugu tagtay inanteeda. marka inanteedu ma aha dad cun, waa inan wanaagsan oo markay hooyadeed rabto inay cunto dadka way ka qarin jirtay. maalin baa waxaa u yimid inanteeda 2 gabdhood oo rabo inay biyo ka cabaan guriga dadqalatada, sababtoo ah way daalanaayeen, mana ogeynin guriga waxaa degan naag dadka cunto. intaynan dhammayn biyihii, dadqalatadii gabadheed ayaa ku tiri, dhuunta hooyaday ayaa soo socota. marka waxay hoos galeen alaab guriga hoos taalay. markay gabdhihii dhuunteen bay dhegdheer timi. markaasay tidhi, waxaa ii soo uraya manaase gabdhoodaa. gabadheedii ayaa tidhi, hooyo waa kuwayga ayaa kuu soo urayee, ma inaad i cunta ayaad rabtaa hooyo? intaa kadib way seexatay. 2dii gabdhood iyo dadqalatada gabadheeda ayaa waxay ku tashadeen inay dilaan dadqalatada. waxay u karkariyeen saliid. marka waxay ugu shubeen dhegaha. 3 minid ka bacdina way dhimatay. dadqalatadii gabadheed way rabtay in hooyadeed dhimato, sababtoo ah waxay aad u cuni jirtay dadka masaakiinta ah.